helitaanka fiisaha Imaaraadka Carabta ee Soomaalida hadda waa dhibaato tagtay waxaan soo dhaweynaynaa bogo cusub ee ah xiriirka Soomaaliya Imaaraadka Carabta oo ahaa kaliya ganacsiga horumarinta iyo gargaarka maanta waa uu ka balaaran yahay intaas munaasabad ayaa lagu daafuray qaybta cusub ee qunsuliyadda safaaradda Imaaraadka ee Soomaaliya waxaana ka go'an samaynta habka codsiga fiisaha si ay si fudud ugu helaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagoo jooga gudaha wadanka. وفي ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لبناء وتوطيد العلاقة الثنائية مع جمهورية الصومال الفيدرالية، تقرر افتتاح مركز التأشيرات لخدمة مواطني جمهورية الصومال وتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستخراج تأشيرات الدخول للدولة بكافة أنواعها. haddii aad qorsheynayso fasax raadinta fursadaha ganacsi ama adeegsanayso inaad sii wadato waxbarashadaada qaybta qunsuliyadda waxay ku siinaysaa fursado fiisooyin oo kala duwan kuna habboon baahiyahaaga tani waa bilow waxayna daliil u tahay ballanqaadkii taariikheed ee labada shacab iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed weli ma ku fikirtay inaad booqato Imaaraadka Carabta